khadka ayaa iga xun sidee ugu dhahaa luqadda ingiliishiga khadka ayaa iga xun gaar ahaan telefonka markaa isticmaalaysid luqadda ingiliishiga waxaa leedahay I have a poor connection khadka ayaa iga xun luqadda ingiliishiga waxa waaye I have a poor connection khadka ayaa iga xun waxa waaye I have a poor connection okay wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah sidee lagu dhahaa luqadda ingiliishiga wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah waxaa leedahay he is from a poor family isaga wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah he is from a poor family isaga wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah waad iga farxisay sidee lagu dhahaa luqadda ingiliishiga waad iga farxisay waxaa leeyahay you made me happy waa iga farxisay you made me happy waa iga farxisay codkaaga hoos u dhig sidee lagu dhahaa luqadda ingiliishiga codkaaga hoos u dhig waxaa leedahay lower your voice please lower your voice please fadlan codkaaga hoos u dhig lower your voice please maxaad igula talinaysaa maxaad igula talinaya sidee lagu dhahaa luqadda ingiliishiga maxaad igula talinaya waxaa leedahay what do you recommend what do you recommend okay haddii aad ku fiicanta luqadda ingiliishiga shantan ama lixdan jumladood waxaa lagaa rabaa af soomaali ka dhig jumladda koowaad she left 3 kids she left 3 kids maxaa laga wadaa tan labaad I am a father of 2 kids maxaa laga wadaa tan saddexaad who left the door open maxaa laga wadaa tan afraad our ocean is not for sale maxaa laga wadaa tan shanaad FIFA Somalia maxaa loola jeedaa tan lixaad I can afford maxaa laga wadaa